sheekada muuqaalku waxay ku bilaabanaysaa gabar tuug ah oo la yiraahdo Marian oo la arkay iyadoo isku dayaysa inay faras xado si kastaba ha ahaatee qorshaheeda waa la fashiliyay markuu qabtay Lord Robin oo ah askari dagaalyahan iyo falaaryahanka Ingiriiska markay isdhex galaan Robin waxa ku dhacay soo jiidashada Marian iyaduna waxay isu aragtay inay soo jiidatay isaga isla markiiba waxay bilaabayaan inay wada noolaadaan iyagoo ku raaxaysanaya wada joog farxad leh farxadooda waa la kala gooyay marka Robin uu helo wicitaanka ciidamada uu ka tirsan yahay isagoo lagu qasbay inuu ku biiro dagaalka dhanka ah askarta Moor inkastoo uu si fiican u yaqaan qaansada wuxuu u xaqiijinayaa Marian inuu ku soo laaban doono si nabad ah intii uu dagaalku socday wuxuu la kulmay dagaal halis ah oo uu la yeeshay askari Carab ah oo lagu magacaabo Yaxye balse waxa badbaadiyay mid ka mid ah asxaabtiisa dagaalka kadib Robin taliyihiisa Gisborne ayaa ku dhacay xadgudubyo ka dhan ah dadkooda taasoo keentay iska hor imaad kacsan marka wiilka Yaxye loo hanjabo isaga laftiisa ayaa soo dhexgalay isagoo dalbanaya badbaadada wiilkiisa inkastoo uu isku dayay Robin inuu u sababeeyo taliyaha naxariislaawaha ah ee Gisborne haddana taliyuhu wuu iska dhigatiray codsiyada naxariista ah wuxuuna sii waday inuu khatar geliyo nolosha wiilka isagoo awoodi waayay inuu daawado dulmiga Robin ayaa soo dhexgalay taasoo keentay isku dhac nasiib daro Gisborne wuxuu goynayaa nolosha wiilka aan waxba galabsan indhaha Robin hortooda qalalaasaha dhexdiisa Robin wuxuu ku dhaawacmay falaaro taasoo keentay inuu dib u gurto markuu ku soo laabtay guriga 4 sano kadib wuxuu ogaaday gurigiisa oo burbursan kaasoo aad uga duwan gurigii uu ka tagay isagoo raadinaya sababta ayuu u jeestay saaxiibkiisii hore Friar Tuck kaasoo ku wargeliyay xanta ku saabsan dhimashadii Robin shariifka isagoo ka faa'iideysanaya maqnaanshihiisa ayuu la wareegay hantidiisii kana saaray Marian gurigoodii Friar Tuck ayaa u tilmaamay Marian oo hadda degan meel dhuxul dhagaxa laga qodo oo ka baxsan magaalada markuu soo gaaray goobtii Marian wuxuu la kulmay iyadoo waqti wanaagsan la qaadanaysa nin kale wiil oo dhunkasho la wadaagaysa isagoo xaqiiqsaday inay ka tagtay Robin wuxuu fahmay inay aamintay inuu dhintay waxayna guursatay nin kale isagoo ka fakaraya talaabadiisa xigta ayuu ka warwareegayaa inuu u dhawaado isagoo aan hubin talaabada uu qaadayo markuu u soo jeestay inuu baxo ayaa si lama filaan ah Yaxye u xanibaya wadadiisa isagoo u soo bandhigay turjumaada magaciisa John ahaan dhanka kale iyadoo uu socdo shir uu isugu yeeray Shariif hogaamiyaha magaalada ayaa dooduhu waxay ku saabsanaayeen sida lagama maarmaan ay u tahay in la kordhiyo canshuuraha si loogu diyaar garoobo dagaalka soo socda Marian oo uu weheliyo ninkeeda ayaa ka dhawaajisay walaac ku saabsan culayska canshuuraha balse cabashadeeda waxaa diiday hogaamiyaha guuxa dadka dhexdiisa Tuck wuxuu sameeyay fashilaad yaab leh Robin Hood waa nool yahay Marian oo warka ka yaabiyay ayaa la kulantay dabayl shucuur ah farxad ay ka heshay badbaadada Robin oo ay ka carootay murugada kala fogaanshahooda qalbigeedu wuxuu weli jacayl u hayaa isaga taasoo ka muuqata dareemaha iskhilaafsan ee wajigeeda ka muuqda dhanka kale Robin wuxuu si qarsoodi ah u sheegay John isagoo uga sheekaynaya kulamadiisa hore iyo go'aankiisa ah inuu daaha ka qaado xaqiiqda ka dambaysa ururinta canshuurta John oo hadda ah saaxiib la aamini karo ayaa la wadaagaya go'aanka Robin wuxuuna soo jeedinayaa baaritaan qarsoodi ah oo lagu sameeyo nidaamka canshuuraha si kastaba ha ahaatee markii Marian ay raadiso Robin oo u heelan inay dib u midoobaan John ayaa soo galay isagoo ka digaya inay soo bandhigaan qorshahooda wuxuu ku qanciyay Robin inay ka horumariyaan hadafkooda rabitaanka shakhsi ahaaneed isagoo ku boorinaya inuu sii wado caawinta kuwa dulman xarunta tababarka ee John Robin wuxuu kor u qaadayaa xirfadihiisa qaansada marka hore wuu ku turunturooday laakiin si degdeg ah ayuu u bartay fanka isagoo noqday awood aan laga hortagi karin ee qaanso iyo falaar tababar adag iyo go'aan qaadasho aan leexleexad lahayn kadib wuxuu isu diyaarinayaa caqabadaha soo socda isagoo ku adkaysanaya go'aankiisa ah inuu u dagaalamo cadaaladda iyo xorriyadda maanka ku haya qorshe dhiiranaan leh ayuu dejiyay qorshe uu ku xado khasnada dawladda isagoo damacsan hantideeda inuu u qaybiyo shacabka dulman markuu u tafaxayto goobta aadka loo ilaaliyo ee ay khasnadu ku taal ayuu ku shaqaysanayaa xirfadiisa qaansada ee aan hore loo arag suu si degdeg ah uga leexiyo askarta taagan jidkiisa si sax ah oo qarsoodi ah ayuu u baabi'inayaa caqabad kasta oo jidkiisa soo gasha isagoo nadiifinaya wadada wadnaha ee khasnada markuu gaaro goobta canshuuraha lagu qaado wuxuu qaaday talaabo geesinimo leh wuxuu ku darsaday canshuurta ugu badan isagoo si istiraatiijiyad ah uga dan leh inuu ku soo jiito shariifka iyo dadweynaha deegaankaba deeqsinimadiisa lama filaanka ah ayaa soo baxday markuu shariifku indhaha saaro hantidiisa wuxuu la dhacayaa geesinimada iyo waxqabadka sharci darada ah deeqsinimada xaddhaafka ah ee Robin ayaa faa'iido leh isagoo ku kasbaday ixtiraam iyo qadarin heer cusub ah uu ka helayo awoodda uu ka soo horjeedo intuu isu diyaarinayay inuu baxo ayaa Marian soo dhex gashay iyadoo raadinaysa inuu iska ilaabo waqtigoodii qalalaasaha lahaa isagoo si adag u dhaqmaya ayuu si bareer ah ugu cadaynayaa dhamaadka xiriirkoodii hore oo tilmaamay sida ay uga go'an tahay qadiyadiisa ka hor intaan u sii daadegin wada hadalka John ayaa u yeeray taasoo ku kaliftay inuu si lama filaan ah uga tago maskaxdiisuna waxay ku fogaan tahay inay sii wataan hawshooda kadib bixitaankiisa wuxuu kaga tagay wax ka badan raad carqaladayn ah
wuxuu boorso qaali ah oo uu soo dhacay uga tegayaa albaabka hoyga Marian, tilmaam aamusnaan ah oo uu ku taageerayo dhibaatooyinkeeda dhaqaale. inkastoo xiriirkoodu uu jabay haddana ficiladiisu aad ayay u hadlayaan, isagoo hoosta ka xariiqaya welwelka joogtada ah ee uu u qabo wanaageeda, iyadoo ay ku dhex jiraan fawdada halgankooda cadaaladda ee ay wadaagaan. dhanka kale, Taag oo u dhaqmaya sidii dhambaalwadaha Shariif ayaa ula yimid war naxdin leh oo ku saabsan xatooyo kale oo ka dhacday khasnadda dowladda. isagoo ka walaacsan xadgudubyada soo noqnoqda ee amniga, Shariifku wuxuu farayaa inuu xoojiyo joogitaanka ilaalada agagaarka khasnadda si looga hortago khasaare kale. si qarsoodi ah ugu sheegay Marian isagoo daaha ka qaaday dhaca joogtada ah ee khasnadda. jawaabteedu way ka yaabisay, halkii ay canaanan lahayd tuuga waxay muujinaysaa inay garab taagan tahay qadiyadooda, iyadoo u ololaysa in dib loo qaybiyo hantida si loogu caawiyo dadka saboolka ah. iyadoo aan la ogeyn, Robin wuxuu dhegta u taagay sheekadooda, isagoo dib u xaqiijinaya aaminsanaantiisa taageerada hagarla'aanta ah ee Marian ee hadafkooda. isagoo ku dhiiraday inay taageerto Robin, wuxuu ka faa'iidaysanayaa fursad kale oo uu ku weeraro khasnadda, isagoo ka soo horjeeda tallaabooyinka ammaanka ee Shariif ee la adkeeyey. si sax ah oo ganaax leh ayuu mar kale ku dhacayaa hantida khasnadda. markan wuxuu si cad ah u doonayaa inuu hantida u qaybiyo kuwa u baahan. markuu sii faafo hadalka ficilkiisa asxaanka leh, wuxuu kasbaday sumcad ballaaran oo ka timid dadka caadiga ah, kuwaas oo ku ammaanaya inuu yahay halyeygooda iyo ilaaliyahooda. isagoo ka faa'iidaysanaya caannimadiisa cusub, wuxuu soo dhowaynayaa doorkiisa calaamadda rajada dadka la dulmiyey, isagoo naftiisa ku kasbaday magac ah The Hood. xirfadihiisa qaangaarnimada ee gaarka ah iyo geesinimadiisa ayaa sii xoojinaya maqaamkiisa halyeynimada, maadaama uu sii wado inuu ka adkaado ciidamada Shariif mar kasta. si kastaba ha ahaatee, ka faa'iidaysiga Robin sumcadda uu helay darteed, xiisadda ayaa ka sii daraysa madaxda sare ee xukunka dhexdooda. kulanka madaxda, magaca Robin ayaa kor loo qaaday, taasoo keentay in laga wada hadlo abaalmarin lagu soo qabto. dhanka kale, daaha gadaashiisa, Shariif iyo Taag waxay wajahayaan cadaadis uga imanaya maamulada sare oo uu ku jiro joogitaanka xun ee Cardinal, kaasoo ka carooday wax ka qabasho la'aanta xaaladda Hood oo halis gelinaysa inay kor u qaadaan dheelitirnaanta awoodda. waxaa muuqata in xitaa Shariifka laga cabsado uusan ka maqnayn saamaynta iyo baarista madaxda dowladda. markuu baxo Cardinal, waxay muujinaysaa isbeddel ku yimaada ajandaha Shariif. wuxuu la tashaday Gisborne oo uu aad ugu kalsoon yahay, isagoo qorsheynaya tallaabadooda xigta ee qarsoon. suu u qoriyo ujeedooyinkooda guracan, Shariifku wuxuu abaabulayaa kulan qiimo leh oo lagu sharfayo imaatinka Cardinal ee dhow. cawayska quruxda badan dhexdiisa, Robin, John iyo Marian waxay dhex sahminayaan kasoo qaybgalayaasha ugu sarreeya. dhanka kale, Taag wuxuu si qarsoodi ah waardiye uga xaday furayaal, isagoo si qarsoodi ah ugu sii gudbinaya Marian si uu u isticmaalo hadhow, isagoo ka faa'iidaysanaya fursad uu ku maareeyo xaaladda si uu uga faa'iidaysto. Robin wuxuu sameeyey iska hor imaad aad la yaab u leh. si been ah ayuu u soo bandhigayaa Taag, isagoo muujiyey inuu khatar ku noqon karo Shariif iyo Cardinal. isagoo ku qancinaya khiyaanadan, ayuu ku qanciyey inay Taag ka saaraan xukuumadda, taasoo meesha ka saaraysa cadowga iman kara dhexdooda. wax yar kadib, Shariif wuxuu qabsaday waqtigan suuqa lalaase aan laga warhayn uga furo magaalada, isagoo u diray Gisborne iyo askartiisa arxanlaawayaasha ah inay u dhacaan oo ay argagixiyaan dadweynaha. Robin wuxuu bilaabay ficil, isagoo ku raad jooga Gisborne si uu u fashiliyo weerarka rabshadaha una badbaadiyo kuwa aan waxba galabsan. bartamaha waxaas oo dhan, aqoonsiga dhabta ah ee Robin ayaa si bareer ah waxaa u muujiyey Marian, iyadoo ka fayday wajxirka sirta ah ee uu ku qarin jiray ficiladiisa geesinimada leh. inkastoo uu dadaal badan sameeyey, Robin wuxuu isu arkay inuu joojin kari waayey horsocodka arxandarada ah ee ciidamada. John-na wuxuu dhibane u noqday gacantooda oo uu qafaashay cadowga aan naxariista lahayn. iyadoo ay ku dhex jiraan qalalaasahaas ayaa waxaa soo ifbaxaya ifafaalo rajo ah, markuu wiil oo ah codka diidmada qayaxan uu khudbad u jeediyo dadka magaalada isugu yimid, isagoo ku booriyey inay kasoo horjeestaan xukunka qalafsan ee Shariif. isagoo ka faa'iidaysanaya waqtiga muhiimka ah, Robin wuxuu si geesinimo leh ugu soo dhaqaaqay horay oo uu iska bixinaya face maskiga suu isu muujiyo inuu yahay Hood, isagoo isku soo ururiyey muwaadiniinta dhibaataysan say u soo ceshadaan sharaftoodii oo ay magaaladooda uga ceshadaan dulmiga. iyadoo la raacayo hagidda istiraatiijiyadeed ee Taag, qorshayaasha ayaa la dejiyey si loo sameeyo afgembi geesinimo leh oo lala beegsanayo kolonyada Shariif ee ay ku raran yihiin hantida aan caadiga ahayn. inta lagu guda jiray fawdadii kacdoonka, Robin iyo dadka magaalada ee la go'doomiyey waxay fuliyeen qorshahoodii sida hufan loo soo hindisay, iyagoo abaabulaya burburkii weynaa ee kolonyadii Shariif. markuu gaarigu ku dhaco god qarsoon, hantidii la soo ururiyey si degdeg ah ayaa loo xadayaa oo loogu talagalay in loo qaybiyo muwaadiniinta dulman. isagoo ka soo baxsaday afduubayaashii, John dib ayuu ugu biiray dagaalka, isagoo xooggiisa la yaabka leh kula dagaalamaya cadowga. dagaal ba'an ayaa ka dhex qarxay shacabkii la dulmiyey iyo kuwii daacadda u ahaa Shariif, iyadoo Robin uu isku arkay inuu ku xiran yahay dagaal adag oo ka dhan ah cadowgii muddada dheeraa Gisborne.
inkastoo uu fursad u helay inuu dhaawac halis ah gaarsiiyo haddana damiirkiisa ayaa u diidaya isagoo Gisborne u daynaya nolosha taasoo caddayn u ah geesinimadiisa lama filaanka ah ee uu ku wajahay colaadda daqiiqado qurxoon oo dib u midoobid ah bartamaha qalalaasaha jacaylkii Robin iyo Marian ayaa dib u soo cusboonaaday isagoo ku dhamaanaya laab isgelin iyo dhunkasho la wadaago dareen niyad jab iyo maseer ay ku jiraan ayuu ku arkay wiil oo la naxsan dhaawac uu ka soo gaaray qarax isagoo xanaaqsan oo maseyrsan ayuu wiil uga tanaasulay Marian gacmihii Robin wuxuuna sidaa ku galay dhaawac iyo mugdi markay rabshadu sii kordho oo ay gaadho heerar khatar ah Robin wuxuu garwaaqsaday baahida loo qabo talaabo adag si looga hortago dhiig kale oo daata isagoo go'aan aan leexleexad lahayn ka duulaya ayuu dhexda u soo galay oo si geesinimo leh ugu soo bandhigay dadka magaalada ee uu ka tirsan yahay isagoo ugu baaqay inay hub ka dhigaan oo ay qaataan dariiqa nabadda iyo dib u heshiisiinta dabadeed wuxuu isku arkay in lagu xidhay gudaha kaniisadda isagoo wajahaya Shariif oo ka xanaaqsan iska hor imaadkii u dambeeyay si kastaba ha ahaatee ka hor intuusan Shariif fulin ciqaabtiisa John ayaa ka soo dhex baxay sababka askarta isagoo ku biiray xoogaga Robin si ay u afgambiyaan dulmilowga si degdeg ah oo cadaalad ah ayay Shariif u xirxirayaan oo luqunta xarig u soo gelinayaan iyagoo gabay maanso ah ka bixinaya dambiyadii uu ka galay dadka marka sharciga la bilaabay in dib loo soo celiyo Cardinal ayaa ka faa'iideysanaya fursad uu ku kordhiyo saameyntiisa isagoo siinaya wiil fursad uu ku fuulo booska Shariif beddelka daacadnimadiisa dareenka cusub ee maamulka wiil wuxuu qaadanayaa doorka isagoo ku calaamadaynaya Robin iyo xulufadiisa inay yihiin sharci daro isagoo dhayalsan khatarta soo socota Robin wuxuu si adag ula tacaalayaa wiil isagoo si cajiib ah falaar ugu tooganaya calaamadda warqadii uu gacanta ku hayay wiil muuqaalka halkan ayuu ku egyaa fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid